qof kasta oo inaga mid ah wuxuu u baahan yahay qaab uu uga hortago guuldarrada nolosha. Laakiin nasiib darro, qof kasta wuxuu ku mashquulsan yahay sidii uu ku guuleysan lahaa, laakiin aanu ku fikirin sidii uga hortagi lahaa guuldarrada. Xaqiiqada guuldarrada waa qayb ka mid ah nolosha, waana muhiim inaad barato qaabka looga gudbo. Ha u ogolaan cabsida guuldarrada in ay burburiso noloshaada iyo mustaqbalkaaga. Waxaan halkan kugula wadaagi doonaa 8 qodobood oo ka hadlaya habka ama qaabka looga gudbo guuldarradaas noloshaada soo wajahda. 1. Bara khaladkaaga. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad guuldarrada uga gudbi kartaa inaadan mar labaad samaynin khalad aad hore u samaysay. taasi micnaheedu maaha inaad haddii aad shay mar ku guuldarraysato inaad mar kale ku guuldarraysanayso, laakiin waxay tahay inaad wax ka barato khaladkaagii hore ee aad samaysay. khaladkaaga oo aad wax ka barato oo aanan kuu sii socon waad kaga hortagi kartaa waddada guuldarrada. 2. Nafta si fiican u deji. Xoogaa nafta deji, neef qaado, misna si fiican uga fikir xaaladda markaasi aad ku sugan tahay. Albaabka weli wuu kuu furan yahay. Ha iscelcelin. Hana dhihin maxay sidaan ku dhacday. Ilaah tala saaro oo xasuuso mar kasta oo ay caqabad ku soo wajahdo. Laakiin nasiib darro, bulshada inteena badan ma isticmaalaan tallaabadan. waxaanan oran karaa waa fikir shaqaynaya, waayo noloshu kuma dhammaanayso hal mar oo aad guuldarraysato. Ha u ogolaan guuldarrada inay deganaanshahaga burburiso. Noqo qof mar kasta deganaansho ku jira xaalad kastoo aad ku sugan tahay. 3. Dooro jiha cusub. guuldarrada waa calaamad muujinaysa inaad saaran tahay jiho khaldan. waxaad u baahan tahay inaad raacdo jihada saxda ah. Ha ku fikirin inaad noloshaada wax ka bedeli karin, maxaa yeelay waad awooddaa. waxaad u baahan tahay inaad iska saarto cabsida guuldarrada, noloshaada u dhaqaajiso jihada saxda ah. 4. Maamul maskaxdaada. ma tahay qof fikira marka ay wax xun dhacaan. waxaad fikirtaa maalintii iyo habeenkii oo dhan, mana joojin kartid. haddaba habka ugu wanaagsan ee aad kaga gudbi karta guuldarrada, xakamee maskaxdaada oo ku mashquul wax akhris, qur-aanka kariimka ah, muxaadarooyin, buugaagta cilmiga iyo kuwa maskaxda kobciya. kuna kalsoonaa inaad tahay ka keliya ay wax ka bedeli karo noloshiisa. 5. Ka fikir waxa keena guuldarrada. guuldarro kasta waa fursad ay wax kuu kordhayaan. guuldarrada iyo khaladkaaga waxay kaa dhigaan mid adag. ogow marnaba inaadan guuldarrada kaga gudbayn haddii aadan garan khaladkaaga. qaado waqti aad ku fikirto, misna ogow sababta rasmiga ah ee keenta guuldarrada. 6. Ha u ogolaan dad kale inay hoos kuu dhigaan, misna ay ku liidaan. waxaa hubaal ah inaad soo martay noloshaada guuldarrooyin fara badan. si kastaba ha ahaatee, ha u ogolaan dad kale inay ku niyad-jabiyaan ama ay kugu tilmaamaan inaad tahay qof aan waxba qabsan karin. ma jiro qof wada wanaagsan, qof waliba khalad wuu sameeyaa. haddaba ku dhiirigeli naftaada inaad tahay qof wax qabsan kara, guuldarradana ka gudbi kara. 7. Iibso buug yar oo xusuus qor ah. maalin walba ku qor 3 shay aad ka guulgaadhay isla maalinta. ileen suuragal maaha inaadan maalin dhan wax faa'iido leh qaban. buugga yar ku magacaabo saaxiibka guusha oo maalintiiba hal mar akhri si aad uga hortagto waddada guuldarrada. 8. Badi ducada. cibaadada badi. allah subxaanahu wa tacaala tala saaro. xus oo xasuuso in eebba garabkaaga taagan yahay mar kasta iyo meel kasta iyo xaalad kasta aad ku sugan tahay. ogsoonow in allah awood ku siiyey. mar kasta u mahadnaq.
aqbal inaad tahay qof alla u sharfay. Hadda waxaan marinaa muuqaalkan inaad wax ka faa'iiday. waxaan la socodsiinaya waa walaalkiin Mahad Cali Cabdallah.